بسم الله الرحمن الرحيم. gabar ayaa aabaheeda kula taliyey inay guursato qof jaamici ah oo aqoon leh. hooyadeedina waxay kula talisay inay guursato qof akhlaaq wanaagsan. gabadhiyo baahi u qabta qof fahamsiiya talooyinkaas baaxadda weyn ayaa waxay u timid awowaheedii oo ay ku tiri, awowe, ma aqoon baan guursadaa mise akhlaaq? awowihii wuxuu ku dhahay, maandhey, su'aashaasi waa su'aal da'weyn oo aan jawaabteeda la soo koobi karin, bal marka hore aan kuu sharxo aqoonyahanka iyo akhlaaqyahanka kuu yahay. awowihii wuxuu ku dhahay, aqoonyahanku waa qof kayd aqooneed leh, hufi karana kaydka aqooneed oo buunshada ka saari kara wixii san iyo waxa xunna kala garan kara. aqoonyahanka waa inuusan noqon weel wax lagu shubtay ama haan la buuxiyey sida CD-ga iyo USB-ga oo kale. waa inuu noqdaa qof alla ka baqa. qof aan alla ka baqin aqoonyahan ma aha. awowihii wuxuu dhahay, dhibaatada maantana haysata waxay tahay aqoontii oo lagu soo koobay midka iskuulka iyo jaamacadda laga qaata keliya. kaas aqoonyahan ma aha, waa tacliinley buu yidhi. aqoonyahanku hadduu aqoonta caloosha ka hormarinayo aqoonyahan ma aha. hadday aqoonta qiimaynaysa sidee lacag lagu heli karaa, si kastaba ha ahaatee aqoon ma aha. aqoonyahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo ama qof la cabsi gelin karo, aqoon ma aha. waxa ayaan dara ah in aqoonyahanada Soomaaliyeed ay badankoodii noqdeen kuwo hunguriga wado oo aan aqoonta wadin. awowihii wuxuu dhahay, maanta dalkeena wuxuu u ooyayaa oo u hanqaltaagayaa inay jiilka cusub ee hadda soo baxaya ka soo baxaan aqoonyahano dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen, waxa uu sheegayana noloshiisa ay ka muuqato, ilaalinayana dhaqankii iyo hiddaha wanaagsanaa ee lagu yaqiinay mujtamaca Soomaaliyeed ee islaamnimada, martisoorka iyo tolnimada iyo qaraabo xiriirinta. aqoonyahan ka hufaya mujtamaca asluubta xun sida qabyaaladda, colaadda, warxumatashiilka iyo musuqmaasuqa. gabadheedii uu ku yidhi awowihii, waxaan u baahannahay aqoon horumar keeni karta oo rabbigeed iyo aakhiro rumaysan, adduunkeedana dhisaysa. gabadhii ayaa waxay ku tiri, awowe, aqoonti ii sharaxdee, bal akhlaaqda ii yara sharax. awowihii wuxuu ku yidhi, gabadhayday, hantida ugu weyn qof yeelan karo tawxiidka kadib waa dabeecad wanaagga. aqoon aan dabeecad lahayn waa hal bacaad lagu lisay. soomaalina waxay ku mahmahdaa, dabeecaddu diinta waa ka bar, dabeecad xumo dadkaa saartay. culimmada reer galbeedka ee ku takhasusa cilmi nafsiga aadanaha markay arkeen dad fara badan oo darajo sare ka gaaray akademiyada iyo jaamacadda, haddana dabeecaddoodii iyo macaamilkoodii reerkoodii iyo bulshada ay la nool yihiin ay tahay mid aad u liidato, ayaa waxay cilmi baaris ku sameeyeen dad fara badan. natiijada u soo baxdana waxay ahayd, cilmi baaristaas ka soo baxda waxay noqotay in dadka bini'aadanku uu leeyahay laba aqoonood ay u kala bixiyeen IQ iyo EQ. IQ-da waa midda akademiyada iyo jaamacadda oo lagu kasbado. EQ-dana ay dhahaan emotional intelligence, waa macaamilaadka iyo akhlaaqiyaadka qofka ee wanaagsan uu leeyahay ee ku salaysan dabeecadda qofka iyo dareenkiisa. waa khibrado qofka uu ka bartay markuu yaraa waalidiintiisa iyo bii'ada uu ku noolaa, diinta iyo mawaaqif qofkaas noloshiisa soo martay oo dhib iyo dheef isugu jira. culimmadii cilmi baarista ku samaysa waxay dhaheen labaduba waa muhiim, yacni IQ-da iyo EQ-da, yacni dhinaca aqoonta oo maadiga iyo markaa isku hesho dabeecad wanaagga waa muhiim. yacni qofkii isku helaana alxamdulilah waa adduun iyo yacni iyo aakhiraba waa hele. laakiin haddii wax la doorbidayo labadood, waxaa la doorbidaa emotional intelligence, yacni waa akhlaaqiyaadka qofka wanaagsan. nebigeennana allahuma salli wasallam calayh, mar alla markay saxaabadu u yimaadaan oo ay talooyin weydiiyaan oo diinta ku salaysan, markuu tawxiidku u sheegay kadib wuxuu amri jiray xusnul khuluq, dabeecad wanaaggii ayuu amri jiray. wuxuuna u sheegi jiray miisaanka alle acmaasha ugu culus ayay ku jirtaa ayuu dhihi jiray. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa addiinu mucaamala, diinta waa mucaamalo. yacni tawxiidka iyo shareecada kadib diintu waxay leedahay mucaamalaad iyo akhlaaqiyaad. yacni aayaadka ugu badan qur'aanka soo degay
waa aayaadka ka hadlaya arrimaha bulshada iyo habka dadka lala macaamilooda iyo akhlaaqiyaadka ayay u badan tahay. marka nebigana allahuma salli wasalam caleyh wuxuu dhahay kuwiina ugu iimaanka wanaagsan waa kuwiina ugu dabeecad fiican, kuwiina ugu dabeecad fiicanna waa kuwa ahalkooda u dabeecad wanaagsan sida xaaskooda oo yacni dabeecad wanaag ula dhaqmo. marka dabeecad wanaagga meesha ay ka bilaawato waa gurigaaga haddaa ku dabeecad wanaagsaneen meel kale kuma dabeecad wanaagsanaanays. awowihii ayaa wuxuu u dhahay gabadhii aan kuu sheego tiirarka ugu waaweyn ee dabeecad wanaagga. markaasuu dhahay kow runtii waa sabarka iyo dulqaadka. qofka markuu si jaahilnimo kula dhaqmo oo u sabraysid. carrada qofka uu xakameeyo. soomaalidu waxay dhahdaa nin carooday laga badiyey. cafinta yacni qofka oo khaladkaa galay iska cafiso. yacni xishoodka iyo tawaaduca qofka inuu xishood lahaado oo tawaaduco aan iskibrinayn, iyo sakhay inuu baqeel ahayn oo gacmo adkeen. gabagabadii daawadayaal, ilaahay wuxuuna siiyey waddan qurux badan oo wanaagsan. waxa kaliya lagu dhaqi karaana waddankaas waa dabeecad wanaag iyo asluub wanaag. marka waxaan ku boorinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda guursanaya ee jiilka cusub inay caruurtoodii ka talaalaan asluub xumada, ku abuuraan dabeecad wanaagga caruurtoodii, yacni si uu jiilka soo baxayo uu noqdo jiil dabeecad wanaagsan oo waddankii wax ka bedeli karo, adduunkana wax ka bedeli karo. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan soo ceshano asluub fiicnaantii lagu yaqiinay ee Soomaalida, martisoorka, isjaceelka iyo wadajirkii. insha allahu tacaala dhalinyaroy mas-uula idin saaran, jiilka cusub ka dhiga jiil dabeecad wanaagsan. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumari ummadaada oo idin soo gudbiyey walaalkiin Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo dubiraday barnaamijkan walaalkeen Axmed Amiin Xasan. daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. fadlan la socda, isdiiwaangeliya, subscriber ka noqda, sidoo kale follow ku sameeya barta Facebooka. waxaan jecelnahay inaan insha allah barnaamij tayo leh mar walba idin soo gudbino. jazaakumullah dhegeysateen. khayr ayaan idin dhaafay. maca asalaama.